السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليه meel kasta adduunka ka joogtiinba ilaa waxaad iga garajeenayaa maalin khayr qabta inuu idinkaga dhigo maanta insha allah. maanta waxaan rabay horta videoan anuu youtube wax ka daawanaya baa waxaan la kulmay video runtii aad iyo aad maaragtay murugo ii geliyey. waxa waaye videoga dhowr daqiiqa idinka tusayaa, ingiriisi ku hadlayaa, laakiin waa sheekh imaam ah oo masaajid imaamka ahaa oo maaragtay publicly intuu soo fadhiistay tv-ga waa la wareysanayaa. BBC baa wareysanaysa. Australian waa sheekha, wiilka Soomaali waaye, imaam masjid waaye. wuxuu yiri waxaa ahay ninka ugu horeeyay oo imaam masjid ah oo Soomaali ah oo publicly intuu banaanka soo fadhiistay yiri waxaa ahay gay, oo gayga yacni ragga jecla ah, waana nin xaas leh oo ilmo leh. marka saana u hubsatiin waxa waaye waxaan diidayaa maaragtay inaa maaragtay la dhaho sheekay iska alifanaysaa gabadhaan, laakiin waa idin tusaya video insha allah. From a very young age, having to go to mosques with my father to pray. Religion was a big part in my life. Noor Warsame is a prominent and well-respected imam, which is the leader of a mosque in Australia's Islamic community, similar to a priest or a rabbi. Noor was married and has a young daughter, and for decades he's lived for his religion, holding onto a secret. There's just trauma after trauma after trauma. So at one point, the only option that I had was suicide. And I did attempt suicide, and thankfully it didn't work. I came back from that stronger, much stronger. Strong enough to reveal his secret publicly for the first time. For me, this will be the first coming out in public. The reason it's difficult for people to come out in the Muslim world is because the losses are too high, the risks are too great. The conservative school of thought in Islam to counter homosexuality is to be killed. And that's your repentance. Noor is now Australia's first openly gay imam. Reconciling spirituality with sexuality. waxaa la yidhaahdaa wiilka Noor Warsame waa sheekhi ugu horeeyay, imaamka ugu horeeyay oo Australia dalka ah degan, oo public banaanka soo istaago publicly yiraahda waxaa ahay nin gay ah ama nimanka jecel ah oo yani quraanka qowmid luud baa lagu yidhi baan ahay publicly banaanka soo istaagay. Because wuxuu yidhi waana gabar buu leeyahay, ilmo yar oo haystaa, xaas buu leeyahay. wuxuu yidhi islaamka haddii dadku ay ogaadaan maaragtay inay maaragtay waxaas banaanka aan soo dhigo ama iraahda gay baa ahay, diinta islaamka waa lagu dilaya. sheekada uu sii wadaa, wareysi badana laga qaada. waxaa leeyahay maxay kula tahay? wuxuu yidhi de waa dhowr jeer xitaa waxaa isku dayay inaan isdilo, way ii suurtageli weysay oo naftayda iska qaado. markii dambe waxaan go-aansaday markaan maaragtay inaan maaragtay banaanka iska imaado oo sheego oo iraahdo anigu ragga jecel ah oo banaanka soo dhigo. YouTube-kan geliyey Soomaali oo qowmuluud ah ama Soomaali banaanka imaado kaleeto. asaga gabar kale jirta iyadana soo baxday oo sidoo kale ka hadlaysa oo dhehaysa gay ahay maxaan sameeyaa, oo gabar yar ah oo dhalinyaro ah oo Soomaali ah. kuwa kale ku jira oo first muslim, labadii qof ee ugu horeeyay oo muslim ahaa oo gay ah oo laba nin ah oo labadu muslim yihiin oo isku guursanaya meel sida kaniisadoo kaleeto ah.
ingiriiska jooga. marka waxay noqotay wixii wax caadi ah. waxay idin la tahay marka heerkaasaan gaarnay inaa maaragtay ilaa hadduu ku asturo xitaa inaa banaankiisa soo dhigtid waxalaal waxaa gudaha ka tahay oo ilaahay maaragtay aad u kuu ceeb qariyay inaanta banaanka soo darid. asaga marka hadda asaga wuxuu kasii hadlayaa, wuxuu leeyahay waxaan rabaa hadda kadib masaajidka waa loo diiday. waxaa la yidhi yacni of course qof ku daba tukanaya malaha neegyiri anigu gey baa ahay. marka wuxuu sameeyey meel buu asaga keligiis inuu dhalinyarada, wuxuu yidhi dhalinyaro badan oo Soomaali ah baa ii timid oo kulligood iyo rag waaweyn oo dhahaya anagu sidaadoo kalaa nahay, laakiin wixii maaragtay banaanka kusoo dhigi karno ma shay geesinimadaas malihi aan banaanka kusoo dhigno. dadkaasaan marka hadda counselor u ahay oo wax u sheegaa oo diinta baraa oo maaragtay. marka waxay idinla tahay aniga ilaa hadda maskaxdayda way ku wareegaysaa. maaragtay dad badan oo caddaan ah oo gaalo ah waa arkay, oo dad badanoo la shaqeeyaa jira, dad badan waxaa jira aan isla shaqeynay oo rag iyo dumarba ka mid ah oo askar ah, qaar dhakhaatiir yihiin, oo dad badan oo la shaqeeyaa jira oo ku sheega ku dhahay aniga dumar ku dhahay aniga dumaraan jeclahay ragna jecli, qaar ku dhahay aniga rag dumar jecli ragaan jeclahay. waxyaala noocaas oo tiro badan waa ku arkay dalkan intaan North America deganahay hadda 5 sano deganahay. marka waxyaala badan waa arkay, laakiin wiil Soomaali ah oo sheekh oo imaam masaajidka ah oo banaanka isoo dhigay hadda igu horeysay. marka maxay idinla tahay maxaase because aniga ilaa hadda waa fikiraa caawo dhan xitaa sida programka banaanka soo dhigtid waxa waaye waa wax cajiib ah moogta. gabar kale video waxa laysoo diray markaan ka hadli doona insha Allah. gabar yaroo dhehaysa Christian aan ahay, diinta Christianka faanaya, taas wax badan aan aragnay. group like hadda waxaa jira sida sheekhaas oo kale soo banaan baxay oo yiri anaga waxaan nahay publicly banaanka u soo istaagay oo yiri anaga qowmuluudaan nahay, waana banaanka u soo baxnay, waana isbahaysanaynaa, kulligood waa is aruursanaynaa. ma aha carab faransiis ma aha talyaani ma waa Soomaali kulligood oo xaas leh oo ciyaal leh oo maaragtay iyo dhalinyaro yaryar oo weli guursanin oo rag iyo dumar isugu jiraan. marka su-aashaas idinka isoo weydiinaya subxaan allah. waxyaala badan oo calaamadaha maaragtay yawma qiyaamaha baa maaragtay iska soo baxay hadda. marka su-aashaas idinka idin weydiiyey dadkii walaalay daawada, bal kommentiyaal badan ii soo qora insha Allah qof kasta wuxuu ka qabo iyo waxay la tahay. khayran isku ognaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.